8 Maarso dunida oo dhan waxaa looga dabaaldegaa maalinka haweenka adduunka. Meelo badan oo kamid ah dhulka Soomaalida ayaana laga xusay weynaynta maalinka 8 Maarso. Muqdisho ayaa kamid ah hay'adda SSWC ayaa qabatay munaasabad loogu dabaaldegayo 8 Maarso oo ah maalinka haweenka adduunka. Munaasabadda oo ay ka qayb galeen madaxda hay'adda SSWC iyo sidoo kale haween kale oo iyagu kamid ahaa martida la casuumay ayaa dhamaantood dadkii goobta ka hadlay waxa ay sheegeen muhiimadda ay leedahay maalintan. Aamina Xaaji Cilmi gudoomiyaha hay'adda SSWC oo goobta ka hadashay waxa ay sheegtay in dumarka Soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin xooggan loona baahan yahay in lagu gudbo isku duubni. waxaan rabnaa oo halkaan ka abiil uga jeedinaynaa annaka waxaan ka shaqeynaa haweenka waxaan u shaqeynaa qaxootiyaasha haweenka tabarta yar haweenkaasaan u shaqeynaa dhibaato badan oo haweenka loo geystaa jirta waa la dhiban yahay waxaan rabnaa in dawladeeda sharafta lahu sharcigii ahaa biilkii ka hortagayay sexual offensive bill in golaha wasiiradu gudbiyaan waa ka codsanaynaa baarlamaanku inuu gudbiyo waa ka codsanaynaa in la dhaqan geliyaan ka codsanaynaa please waa baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka baryaynaa dawladda in because dhibaataa jirta dhib baa jira waxaan rabnaa dhibkaasu qofkii wax kufsaday qofkii wax dilay sharciga in la horgeeyaan rabnaa dawladnimada aan raadinayna waa intaas ku jirta maanta oo ay tahay 2018 halkan inaan ku dabaaldegno munaasabadii 8 Maarso waxaan rabaa in aan haddii alla yiraahdo isku ogaano sanadkan haddii ilaahay nolol iyo nabad nagu gaarsiiyo sanadka dambe ducadii aan maanta qaadna ilaahay inuu nooga jawaabo ilaahay wuxuu yiri bariya ilaahu dawladnimaan ka barinay shaqeynaysa oo ummadda Soomaaliyeed kuwii cashuurta dhiiba kuwii dawladda la shaqeeya kuwii dhibaatada ilaahu naga qaatid gooyada iyo culayska ilaahu adaan ku barina waa kaaga xamdi naqno meeshaan ka nimid annaga ogeyn waxaan ka nimid markaan fiiriyo meeshaan ka nimid ilaahay baan u xamdi naqaa hay'adda SSWC ayaa kamid ah hay'adaha waloolaya xuquuqda dumarka maanta oo 8 Maarso ah ayayna qabatay munaasabad loogu dabaaldegayo maalinka haweenka adduunka. Calaadan Muumin Goobjoog, Muqdisho.